kusoo dhawow barnaamijka Baraarug waxaan ahay Cabshakuur Maxamed Xarbi. waxyaabaha ugu waaweyn ay ku kala duwan yihiin tujaarta iyo fuqarada. Aristotle ayaa yiri boqolkiiba 95 waxyaabaha sameeyso waa caado aad leedahay. baaritaano caalami oo la sameeyay waxa lagu ogaaday inay kala duwan yihiin gabi ahaanba nolosha ku kala nool yihiin tujaarta iyo fuqarada, waana sababta ugu weyn ee ka kala dhigtay labada martabadood kala duwan. waayo waxay ku kala duwan yihiin waxyaabaha ay sameeyaan, sida maalintooda u isticmaalaan, sida waqtiga uga faa'iideystaan, sida wax uga falceliyaan, sida wax uga fikiraan. waata keentay inuu midna taajir noqdo midna faqiir noqdo. ninkan waxba aakhiro u oolin ayaa faqiir ah. waxaan ka hadlayaa hantida adduun. haddii ay tahay wax fudud oo Ilaahay qof walba iska siiyo, qof walba taajir ayuu ahaan lahaa, qof walba hanti ku filan ayuu heli lahaa. laakiin waa wax u baahan kasbasho iyo dadaal dheeraad ah, xeelad iyo qorshe u baahan. waxay u baahan tahay inaad waqti ku bixiso sidii aad u noqon lahayd nin hanti adduun hela. haddii aad haddaba tahay qof nagu cusub, fadlan taabo subscribe si aad mar walba noqoto qofka ugu horeeya nala socda. sidoo kale page-ka like iyo follow dhe si aad mar walba noqoto qofka ugu horeeya ee page-ka nagala socda. tujaartu waxay qaataan dhiirigelin maalinle ah. noloshu way adag tahay. subax kasta markaad soo toosto waxay la mid tahay adigoo waajahaya dagaal. nasiib xumo fuqaradu ama dadkaan hantida lahayn waxay kusoo toosaan iyagoo social media isticmaalaya, sidoo kale waxay kusoo toosaan iyagoo TV daawanaya. uma diyaar garoobaan maalinkaas. laakiin tujaartu waxay fahansan yihiin in maalinkaaga si aad awood u yeelato subaxii aad u baahan tahay dhiirigelin. waxay badi markaas sameeyaan waxay dhageystaan oo ay akhriyaan bugaag dhiirigelin ah. haddiinu laakiin inagu muslim nahay, waxay diinteenu islaamku ina fartay inaynu qur'aan akhrino maalin kasta. dhiirigelin intaas ay noogu filan. qur'aanku waa dhiirigelin buuxda. haddaad subax kasta akhriso dhiirigelin dhammaystiran ayaad helaysaa. waa sida diinteenu ina fartay. waxaa jirta hal saac oo la yiraahdo hour of power. halkaas saac waa halka saac ugu horeysa maalin kasta markaad soo toosto. waqtigaas waa maalinkaaga saacadda ugu horeysa. waxaa loo baahan yahay halkaas saaca in aad maal gashato. maal gashata macnaheedu waxay tahay waxyaabaha muhiimka ah inaanad sameyn, inaanad social media eegin, inaanad TV daawan, inaad qur'aan akhrisato, inaad Ilaahay subxaanahu wa ta'aala caabudo, inaad bugaag dhiirigelin akhrisato, inaad dhageysato waxyaabo farxad leh oo markaa dhiirigelin ah. waayo waa halkii saacad awoodda ku qaadanaysay. hour of power. ila tijaabi hal isbuuc. markaad soo toosto waqtigaaga ugu horeeya, ha tijaabin social media, mobilkaaga iska xidh, TV-na ha daawan. markaad sidaa usoo toosto waxaad isku daydaa inaad weyse qaadato, aad qur'aan akhriso, salaada subaxna tukato. markaad soo toosto aad qur'aanka akhristo, aad salaada tukato, waxaad isku daydaa inaad buug dhiirigelin akhriso ama bugaag motivation ah. dhageysato waxyaabo noloshaada horumarinaya. hal isbuuc sida ila eeg. bal halka isbuuc markay dhamaato, bal dib u milicso maalmahan waxay kaga duwanaayeen maalmihii hore aan sidaas sameyn jirin. run ahaantii waxaan ku ballan qaaday inaad ku farxi doonto, inaad noqon doonto qof energetic oo markaa ah qof wada tamar ah oo farxad miiran ah maalinkaas. waayo subaxaagii ayaad maal gashatay. hour of power ayaad waxaad ka dhigtay mid meel gashan. waqtigaaga ayaad ka faa'iideystay. run ahaantii maalinkaaga oo dhanna waxaad go'aaminaysaa halkaas saac waxaad kusoo toosto. mar walba ka fiirso waxaad halkaas saac sameynayso. tujaartu waxay dejistaa hadaf maalinle ah. baaritaano caalami oo la sameeyay waxa la ogaaday boqolkiiba 81 dadka hantida lahi inay maalintooda qorshe u dhigtaan oo hadaf maalinle ay sameystaan. wax badan ayay markaa ka gaadhaan maalinkooda oo qorshahooda in badan oo kamid ah way u fushaa. waayo waxaana loo sababeeyay waa qorista ay qorayaan hadafyada doonayaan inay gaadhaan. waayo way kala duwan yihiin. laba qof oo garanay, midna garanay wadada maraya, midna aanu garanayn. haddaad garanayso wadada aad marayso, waad si fudud ayaad ku gaadhaysaa. laakiin haddaanad garanayn, waxaad u dhaxaysaa inaad gaadho iyo inaad gaadhi weydo. dadka hantida lehina markay qorshahooda dhigtaan oo ay qortaan, way u fududahay in badanna way gaadhaan. waayo waxay yaqaanaan wadadii ay mari lahaayeen. tujaartu waxay diiradda saaraan wax yar oo kooban. boqolkiiba 80 dadka hantida leh waxa lagu qiyaasay in lagu qiyaasay boqolkiiba 80
dadka hantida leh waxay samaystaan hadaf maalinle ah oo ay diiradda saaraan in yar oo kooban. inta yar ee kooban ee hadafka maalinlaha ay dhigteen ayay diiradda saaraan, taasoo markaa ka dhigtay inay si fududna u gaaraan maalinkoodana uga midho dhaliyaan. Steve Jobs, mulkiilaha shirkadda Apple, ayaa wuxuu leeyahay halkudhig caan ah oo ah focus and simplicity, macnaha diirad iyo weliba fududeyn. marka waxa weeyaan in aad focuska saarto, aad diirad saarto hadafkaaga, sidoo kalena yani simplicity yani ay fududahay yani marka wax badan ayaad gaaraysaa. Steve Jobs marka wuxuu yani kelmadda uu aaminsanaa uu ku dabaqay noloshiisa iyo sidoo kale tan shirkadiisa maanta waan naqaanaa, waa shirkadaha ugu waaweyn caalamka. inta badan waa shirkadan jecelnahay inaan moobiladeeda qaadano iPhone. macnaha waxa weeyaan hadafka dhigatay ha isku adkaynin, adigu bini aadan kama weynid, waxaad kaliya haysataa 24 saacadood. 24 saacadood waxaad kala bar kulmaysaa hurdo, nasasho iyo waxyaabo kale oo jeceshahay inaad qabato. inaad samayso multitasking, inaad waxyaabo kala duwan oo aad isku hal mar qabato waxay keenaysaa weakness, adiga yani awood ma helaysid yani inaad wixii mid walba ka jabo keento. laakiin haddaad wax yar oo fudud aad samaysato waxaa awood u yeelanaysaa inaad mid walba aad si macaan yani hawshaas aad uga soo baxdo. mar walba isku day inaad wax simple ah qabato, sidoo kalena focus samayso, diiradda saarto. Tijaartu maalin kasta wax way barataa. sida baaritaan lagu ogaaday 86% dadka hantida leh waxay aaminsan yihiin in noloshaada aad si wacan u sii noolaato oo qurux badan ay ku xiran tahay maalin kasta inaad wax barato, maalin kasta inaad wax ogaato. halka fuqarada in badani ay u haysato inay shaqo un tahay. laakiin inaad wax barato, aad maalin kasta wax barato, waxay qiimo muhiim ka tahay yani cimrigaaga inaad si qurux badan u noolaato. waxbarashadu maaha micnaheedu inaad ku jirto iskuul ama jaamacad, laakiin waxaa jirta waxbarasho maalinle ah oo ah inaad akhriso buugaag, inaad dhageysato buugaag yani audio ah oo cod ah, inaad aqoon ka kororsato deegaanka aad joogto, oo yani maalin walba waxaad arkayso oo aqoon ka kororsato. aqoontu maaha oo kaliya tanaad classroomka ama galaaska aad u tagto, laakiin waa tanaad maalin kasta barato, everyday learner aad noqoto, maalin kasta qof wax barta. marka isku day inaad mar kasta wax barato, waayo noloshaada quruxdeeda ayaa ku jirta. tijaartu waxay yaqaanaan markay oranayaan maya waa eray run ahaantii adag marka luqadeena af Soomaaliga la eegayo, sidoo kalena luqadaha kale qalaad. maya inaan maqalno way nacabnahay, eraygan xanuunka badan leh way nacabnahay in waxyaabo badan ay jecel lahay idhaahno maya. laakiin waa inaan barano inaad guuleysato maaha wax fudud, laakiin waxay kaaga baahan tahay wadada dheer iyo weliba mayl adeeg. markaan leeyahay waxaan uga jeedaa inaad maya tiraho waxyaabo badan oo aad jeceshahay, laakiin waxyaabahaas aanay kugu tuureyn wadadii aad doonaysay si aad horumar u gaadho. marka waxa kuu bannaan inaad tiraho maya. tijaartu waxay horeysiiyaan waxyaabaha muhiimka ah. Brian Tracy buugu qoray oo magaciisa la dhaho Eat That Frog, wuxuu buugaas sheegayaa qiimaha ay leedahay in la horeysiiyo waxyaabaha muhiimka ah. subaxii waa waqtiga ugu wax soo saarka badan bini aadamka noloshiisa. subaxii refresh ayaa tahay, sidoo kale subaxii waxaad leedahay awood dheeraad ah oo aanad haysan waqtiyada kale. si aad uga faa'iideysato waa inaad waxyaabaha muhiimka aad subaxii qabato, waa inaanad kusoo toosin oo aanad horeysin waxyaabahan muhiimka ahayn, hadhowta markaad daashana waxyaabo muhiimka sidaanay kugu soo beegmin. waa inaad subaxii qabato wax kastoo muhiim u ah hadafkaaga, yani hadafyadaad qoratay ka ugu muhiimsan waa inaad subaxii ku beegto. waayo markaad waxyaabaha muhiimsan aad qabato waxa fududaanaysa marba marka ka dambeysa in shaqada kale kugu dhiibto. sidaas ku dhiibtaana way adkaanaysaa. taas waxay keenaysaa inaad ka midho dhaliso maalinkaaga. isku day inaad subaxii waxyaabaha muhiimka aad qabato. cuntada iyo jimicsiga waxyaabaha ugu waaweyn ay ku kala duwan yihiin tijaarta iyo fuqaradu. cunto badan ayay cunaan, sidoo kalena jimicsi ma sameeyaan inta badan fuqaradu. laakiin tijaartu inta badan way ka warhayaan cuntooyin kala duwan ay cunayaan, isku dheelitirnaankeeda iyo sidoo kale waxay jirka u faa'iido u leedahay iyo waqtiga la cunayo. sidoo kalena jimicsiga ma ilaawaan.
waata keentay in wax badan maalinkooda soo saaraan waayo waxay og yihiin waxay cunayaan sidoo kalena jimicsi ay sameynayaan inkastoo xanuunka loo siman yahay barnaamijka baraarug intaas ayaan ku dhaafayaa inta ku kulmi doono barnaamij la mid ah waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh